السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Zainab. maanta khadka waxaa igula jira dhakhtarad caan ah oo la yiraahdo Sameer Xasan. waxay GP ka tahay magaalada Leicester. waxay ka hadashay BBC-ga iyo ITV-ga, waxayna haysataa YouTube channel oo ay ka hadasho macluumaadka caafimaadka. soo dhawaw Dr. Sameer Xasan. waa dhawahay walaal. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxaa ka hadlaynaa su'aalo ku saabsan coronaviruska iyo fahamka khaldan oo laga haysto. su-aasha koowaad: maxay yihiin walwalka ugu weyn ee aad ka qabtid dadka ku yimaada ee Soomaaliyeed markay ku timaado helitaanka iyo fahamka macluumaadka caafimaadka? marka COVID-19 vaccinationkiisa ama tallaalkiisa dadku cabsida ugu weyn ay ka qabaan waxa weeyaan sida ugu dhaqsaha badan ee loo soo saaray tallaalkan. waxay hore u arkeenna ma aha, waxay la yaabsan yihiinna way tahay, marka kalsoonidiiba ka luntay sidaa daraaddeed. marka markasta waxaa laga warwarsan yahay maadaama si dhaqsa loo sameeyey tallaalkan, si fiican ma loo tijaabiyey, ammaankiisa ma laska xaqiijiyey, ma leeyahay waxyeelooyin mustaqbalka ama hadda dadka ku dhici kara. waxyeelada laga baqayo ay ka mid yihiin waxyaabaha maaragtay qofka caafimaadkiisa iyo mustaqbalkiisa waxyeeli karo. su-aasha labaad: dadka badankood waxay ka walwalsan yihiin in tallaalku yahay arrin ay dowladda dejisay si ay ku xakamayso shacabkeeda. sideed u aragtaa arrintaas? marka ugu horeysa waxa weeyaan in laisla fahmo tallaaladan dowladdu ma samayn, qof dowladda ka midana muu samayn. waxaa sameeyey cilmi saynis yahanada iyo kuwa waxaa ku takhasusay oo shaybaarinta iyo saynis yahanada adduunka oo dhan isugu yimi. hal dowladna waxaa kan shaqo kuma lahayn. marka maadaama ay saynis yahanadu ka mid ahaayeen qolada Turkishka, Maraykanka, Brazil, South Africa iyo kuwa Ingiriiska nala degan, waxay isugu keeneen cilmi sayniskooda oo dhan si ay u sameeyaan tallaalkan si looga hortago cudurkan dunidan oo dhan ku faafay, dad iyo dhaqaalena waxyeelay. marka waxay hal dowladii ku shaqo lahaydna ma aha, waxay dowladii samaysayna ma aha, waxay dowladda talo ku lahaydna ma ahayn. Thank you. su-aasha saddexaad: dadka qaarkiis waxay rumaysan yihiin in GP-yada iyo dadka kale ee caafimaadka ka shaqeeya inay lacag la siinayo inay tallaalka dadka siiyaan. ma run baa arrintan? marka taasi waa su-aal ay dad badan ay weydiiyaan runtii. waxaan doonayaa runtii inaan idiin sharaxo xagga lacagta GP-ga beni dheeraada leh inaguma kordho haddaad laga hadlayo faa'iidooyinka aan jeebkana gashanayno. way jirtaa lacag ay dowladdu iyo NHS ay ku soo shubtay GP-yada iyo qolyaha vaccinationka bixinaya si laskaga bixiyo kirada meesha la kiraysanayo, tallaagadaha iyo biilashooda. tallaalada laftigood lacag bay u baahan yihiin, yani laskaga bixiyo, iyo waxyaabaha la isticmaalayo sida PPE-ga maaragtay waxa sanka iyo wejiga lagu xidhanayo, gloofyada iyo apronska la xidhanayo, iyo irbadaha la isticmaalayo oo dhan iyo tiishooyada la isticmaalayo ayay lacagtani galaysaa. lacag dheeraada oo GP-yada loo dhiibayo maaha. marka arrinta tan waxaan wadnaa annaga hawsheenna kala wadana GP ahaan, sida dadka yani nagala soo xidhiidhaya xanuunada kale caafimaadkooda ku saabsan. marka wax dheeraada GP kusoo kordhaya ama business ahaan nagu soo kordhaya ma aha. lacagtii layna siiyo waxay keliya ku filan tahay sidii loo bixin lahaa tallaalada. miyaad qaadatay tallaalka? sidee dareentay tallaalka kadib? marka anigu tallaalkii ugu horreeya waan qaatay. tallaalkii ugu horreeyay waxaan isku dhuftay bishii koowaad wiigii hore. markii maalintii ugu horreysay laygu dhuftay gacanta xagga sare laygaga dhuftay, waxaan dareemay xumad yar iyo damqasho iyo gacantu oo yara cuslaato. waxaan dareemay daal, waxaan dareemay madax xanuun. laakiinse maalintii ku xigtay markaan seexday kadib waxaas astaamahaas oo dhan wayga wada ba'een. marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, caafimaadkayga waan iska qabaa. alxamdulilah. waa maxay sababta loogu baahan yahay qaadashada tallaalka labaad? hal tallaal dadka kuma filna miya? maya, sida loo tijaabiyo tallaalada laba doos baa loo baahanyahay ama 2 jeer in lagu duro, waayo mid walba shaqo gooni u leeyahay. tallaalka ugu horreysa wuxuu difaacaaga kicinayaa ilaa 50%, 20%. marka wuxuu kicinayaa oo hurdada ka kicinayaa unugyada difaaca. tallaalka labaad muddo kadib marka lagu siiyo, unugyada difaaci oo hore loo kiciyey ayuu sii tababaraya kaba soo qaad. marka wuxuu sii kicinayaa tijaabooyinkii maaha, askartii difaaca ama unugyada difaaca ayuu sii kicinayaa si ka sarreysa hal tallaal keliya. marka tallaalka labaad waxaa laga yaabaa difaacaaga inuu kaco ilaa 90% 95 ama 94% hadba tallaalkii ku xidhan tahay. maxaad u aragtaa fiidiyooyada lagu faafinayo WhatsApp-ka ee fikradda khaladka ka bixinayo coronaviruska? marka way jiraan fiidiyooyo fara badan oo aad lasugu duubay oo meel walba la marinayo ee dadku ka hadlayaan waxyeelooyinka khatarta ah ama looga baqsan yahay tallaalkan COVID-19.
badanaa dadka fideoyada sameeyey waa dad aan tallaal waxba ka garanayn, qaarkoodna waxay isku sheegeen dhakhaatiir, qaarkoodna ma aha, qaarkoodna waa dhakhaatiirta kale oo iyaguna waa bani aadam, qof walba fikrad goonni uu yeelan karaa. laakiinse sidaan u aragno fideoyadan oo dhan dadkii waxa wax ka yaqaanay iyo dhakhaatiirteennii markaynu dib u eegnay oo aragnay fideoyadan, qof waaxida oo fideoga ku jira waxyaabuhu ka hadlayo waxyaaba uu ku xaqiijin karo ma leh, marka wax caddayna ma leh. dunidana waxa fiican in wax la raaco wax caddayn ku saabsan iyo wax caqligala moogtahay. marka qof walba wuxuu dhiibayaa wuxuu ka baqsan yahay iyo waxyaabuhu ka warwarsan yahay, laakiinse dadka qaarkood waxay ka dhigayaan inuu wax dhaba yahay iyagoona caddayn haysan. marka anigu ummadda waxaan kula talinayaa aad iyo aad isaga ilaaliya wararka laydiin soo dirayo, waayo qof walba wuxuu sheegayo dhab ma aha. xataa dhakhaatiirtiinna annaga naga mida xaq baad u leedihiin waxaa laydin yiraahdo oo dhan inaad su-aalo weydiisataan oo tirahdaan caddayntiisu muxuu yahay. marka sidaa iyo si la mida inaad ula macaamishaan weeyaan fideoyada laydiin soo dirayo iyo wararka laydiin soo dirayo, inuu sax yahay iyo in kale inaad iska xaqiijisaan intaydana idinku daawan ama aad dadka kaleba u gudbin. Thank you. Fayraska hadda wuxuu nala joogaa in muddo ah, waxaana jira dad oranaya ama aaminsan inuu fayrasku ku dhacay difaacna jirkooda haysto oo aana baahnayn talaalka. maxaad ku oran lahayd dadkaas? marka waa run markuu fayrasku kugu dhaco covid-19 hadduu ilaahay kaa bogsiiyo alxamdulilah aad ka kacdid, qasab waad yeelanaysaa unugyada difaaca oo jirhkaagii caadi ahaan iskaga celiyey viruska coronavirus. laakiinse waxaynan garanayn adigu unugyada difaacaaga caadi ahaan u kacay xanuunka kadib inuu muddo kugu filan kugu sii raagayo. waxaa la sheegay haddeer cilmi baadhis baa jirta oo sheegaysa ilaa 5 bilood ilaa 6 bilood in qofkii laga helay unugyadii difaaca markii uu ku dhacay infectionkii ama coronaviruskii 5 bilood ka hor, laakiinse intaa wixii ka dambaysa oo laga waayay unugyadii difaaca. tallaaladan wixii ku fiican yahay waxa weeye in la qiyaasay iyo in la garanayo oo lagu tijaabiyey oo la arkay inay kicinayso difaacaaga ugu yaraan sanad, iyo insha allah wixii dhaafsiisan weli waa sugaynaa intuu uu kugu sii hadhayo, laakiinse ugu yaraan sanad baa la arkay. marka maadaama ay tahay wax laska hubo oo tahay in la qiyaasay oo loogu talagalay ugu yaraan sanad inuu kaa celiyo, marka waxaa la leeyahay xataa haddaad coronavirus hore kugu dhacay waa muhiim inaad tallaalka qaadatid, waayo waxaa loo baahan yahay inaad difaacaaga mar walba heerka ugu sarreeya aad u kicin kartid aad u kicisid si aad iskaga hortagtid ama iskaga celisid coronavirus. maxaad ku dihi lahayd dadka aan rabin in cudurka covid laga baaro? baaritaanku iyo tallaalku waa kala lab somaha. marka anigu waxaan la talinayaa qof walba marka ugu horeysa xaq baad u leedahay inaad diidid tallaalka, because waa wax weli adiga go-aankaaga lagula sugayo, wax qasaba maanta ma aha. laakiinse waa idinkula talin lahaa inaad tallaalka qaadataan idinkoo wararkii saxda ah ama su-aalihiina aad dhiibtay kadib aad isku qanciseen inaad qaadan kartaan, taasi waa mid. laakiinse baaritaanka covid-19 aad iyo aad buu muhiim u yahay, waayo waxaa jira dad badan oo covid-19 qaba ama coronavirus qaba oo aan istaamo lahayn, marka iyagoo isba ogeyn bay dadka kale coronavirus qaadsiin karaan. marka waa muhiim in si loo joojiyo faafitaanka bulshadeenna iyo faamiliyadeenna iyo mujtamaceena ka dhex soconaya, qof walba hadduu astaamaha mid ka mida oo la sheegay oo 4 ka mida la sheegay uu isku arko, waa muhiim inaad isbaadhid, waayo haddaad isxakamaysid ama karantiin isgelisid waxaad joojinaysaa qof kale inuu qaado, ama waxaad joojinaysaa qof kale ayeeyadiis ama awowihiis ama hooyadiis aad qaadsiisid, waayo faafitaankaas dad badan buu naga dilay. marka anigu waxaan idin leeyahay oo aan rajaynayaa inuu dadku at least markay qaadanayaan ama tallaalka ama ay isbaarayaan inay naftooda kaliya maahay dadka kale mujtamaca ku jira, weliba khaasahan dadka nugul iyo dadka waayeelka ah inay ka fekeraan insha allah. maxay yihiin qodobada ugu waaweyn ee aad doonaysid inaad dib ugu wacyigelisid bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ee ku saabsan faafinta warka khaldan? marka pointska waaweyn ama waxyaabaha aan rabo inaan runtii ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ugu celceliyo, waxaan leeyahay waa aad iyo aad u muhiim inaad iska hubisaan wararka laydiin soo dirayo, waayo wararka laydiin soo dirayo wax kastaa ku jiri karta, qaar badankood been bay noqon kartaa, qaarna run bay noqon kartaa. marka adigu ma garan kartid maadaama ay tahay waxyaaba maaragtay cilmi science ku saabsan, haddaydinaan iska hubin dadka wax ka yaqaan weydiiya, ama dhakhaatiirtiina ha ahaato ama qof ku takhasusay samaysinta vaccinationka ama tallaalada ama dadka saynis yahanada. marka idinkoo iska hubaya warku inuu sax yahay, fadlan idinkuna ha aaminina dadka kalena ha gudbinina, waayo haddayn isu gudbino wararka khaldan
nafteenna iyo dadkeenna iyo mujtamaceennan wax yeelaynaa coronavirus in gacmo wada jir inaan wada qaadano weeyaan si aan uga hortagno oo insha allah xayiraadan aanu ka baxno iyo dhibaatooyinka inoo keentay coronavirus iyo covid-19 insha allah maxay yihiin tallaabooyinka nalaga baahan yahay inaan qaadano si aan nafteen u badbaadino qaadashada fitamiinada oo kaliya ma ku filan yahay ka hortagga cudurka covid marka ka hortagga cudurka covid siyaabo badan iyo gacmo badan buu leeyahay moogtahay marka ugu horreysa su-aashay dadkay weydiiyaan waxa weeyaan mar walba maxaad ugula talinaysa dadka inay tallaalka qaataan meeshay naftooda difaacooda kicin lahaayeen aad ugula talin lahayd mar walba iyo si joogto ah ummadda soomaaliyeed iyo ummadda oo dhan waxaan ku celcelinayaa nafteenna inaan kobcino caafimaadkeenna inaan ku dadaalo mar walba way muhiim cudur kasta covid-19 keliya ma aha ka hortagiisa way ka mid tahay inaad caafimaadkaaga markiisa hore asaaska aad ka dhistid sida for example cuntada nafaqada leh wax cuntada nafaqada leh fitamiin bedelaya horta maba jiro cuntada nafaqada leh ayaa laga helaya fitamiinada iyo nutrientska kale oo ugu fiican oo jidhkaagu u qaadan karo waxaana lagu darayo si dheeraada inaad mar walba exercise ama aad jimicsiga qaadataan si aad jidhkiina u dhistaan waayo xataa difaaca jidhkaaga wuu ku xidhan yahay cuntada aad qaadanaysid iyo jimicsiga aad samaynaysid jimicsiga laftigiis difaaca u kiciya iyo hurdada wanaagsan mar walba jidhkeenna caafimaadkeenna iyo difaaceenu kiciya taasi waa mid fitamiinada la qaadanayo oo dee ka hortagga coronavirus kaa celinaysa ma jirto laakiinse waxaa la sheegay vitamin D inuu kobcinayo oo sii adkaynayo difaaca jidhkaaga wax sii adkaynaya ama kobcinaya difaaca jidhkaaga mar walba wuu ku fiican yahay si uu jidhkaaga uga hortago cudurrada oo dhan covid-19 keliya maaha laakiinse khaas ahaan covid-19 waxaa la arkay dadka ay vitamin D-goodu had iyo jeer fiican yahay waxaa laga yaabay inay astaamo sahlan ay ku dhacdo covid-19 marka qof walba waxaan kula talinayaa inay vitamin D-ga joogto u qaataan vitamin ahaan laakiinse wax daweynaya ma aha marka idinkoo waxaas oo dhan sameynaya inaad mar walba qaadataan taxadirka dheeraadka ee dowladda nugula talisay sida maaragtay kala fogaanshaha ugu yaraan 2 mitir la kala fogaado gacmo dhaqidda mar walba iyo wajiga iyo sanka weliba khaasan afka iyo sanka la daboosho si aan loo kala qaadin virusku aad iyo aad buu muhiim u tahay annagoo wadana caafimaadka asaaskiisa annagoo dhisayna marka waxaasoo dhan in laisla wato weeyaan si aan nafteenna iyo faamiliyadeenna aad u badbaadino insha allah insha allah aad iyo aad ku macsan tahay inaan maanta su-aalahayga ka jawaabtay waxaan dadka ku dahi lahaa inaad hadaa rabtid any more information inaad youtube channelka Samira daawataan waxay ku hadashaa videoyaal oo ku saabsan covid iyo macluumaadka caafimaadka aad iyo aad baad u mahadsan tahay qolada isha maasha allah soo bandhigtay barnaamijka ay rabaan inay ummadda Soomaaliyeed khaasahan ay ku wacyigeliyaan khaasahan caabuqa covid-19 la yiraahdo iyo tallaalkiisa aad baad ugu mahadsan tihiin inaad igala soo qayb geliseen insha allah khayr badan baan idin rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته